cabdulaahi maxamed nuur waa xildhibaan, wasiir hore, qandaraas qaate iyo ganacsade hantidiisa ay kor u dhaafayso $50 milyan. 9 sano gudahood ayuu intaan oo dhan ku sameeyey cabdulaahi. horaantii sanadihii 2000 ayuu cabdulaahi magaalada muqdisho soo galay. baadiyaha gobolka Shabeellada oo ku dhashay kuna barbaaray kama helin wax tacliin ah. iskuul waxbarasho ayuu ka helay caasimadda. 2009 ayuu gacan yare u noqday Sheekh Shariif oo madaxweyne loo doortay. 2001 abaar dalka ku dhifatay oo galaafatay dad ka badan $2 milyan ayuu cabdulaahi xiriiriye u noqday madaxtooyada iyo hay'adaha gargaarka Turkiga oo u yimid inay caawiyaan dadka abaarta ku xoolo beelay. waa halkan meesha ay ka bilaabatay qisada hodantinimada cabdulaahi. $4 ilaa $5 milyan lacag gaaraysa ayuu cabdulaahi ka sameeyey raashin gargaar ah oo hay'adda Turkiga ee Tika iyo kuwo kale ay ugu talagaleen in Soomaalida lagu caawiyo, balse uu iibsaday isagoo ka faa'iideysanaya awoodda madaxtooyada ee xilligaas. budhig ayay u noqotay inuu cabdulaahi ku fikiro ganacsi. hoteelka City Plaza ee Muqdisho ayuu ka bilaabay ganacsigiisa. kadibna waxa uu sii ballaariyay dalaalnimadiisa isagoo oo qondo ku yeeshay dhammaan qadaraasyada Turkigu ay ku bixiyeen waxbarashada, gargaarka iyo dawladhiska ciidamada. Janaayo 2015 ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake waxa uu magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda. waxa uu dhigmay wasiir buuxa isagoo oo maleeshiyaad gaar u ah adeegsanaya ayuu dhammaan canshuurta soo gasha dawladda qasnadiisa si gaar ah ugu shubanayay. tusaale ahaan $20 ayuu konteenar kasta oo dekedda Muqdisho ka soo dega ku lahaa sanadihii 2015 iyo 2016. qarashka labadaas sano soo galay isaga iyo madaxweynihii hore Xasan Sheikh ayaa kala qaybsaday. 2016 cabdulaahi waxa uu xildhibaannimadiisa ku bixiyey adduun lacageed oo kor u dhaafaya $5 milyan Maraykanka ah. kadib markii uu ku hongoobay in Xasan Sheikh dib loo soo doorto si uu qandaraasadiisa musuqa ku salaysan u ilaashado, waxa uu bilaabay inuu dadka ka niyad jabiyo dawladda isaga oo adeegsanaya xasaanadda xildhibaannimada. waxa uu ololeeyay inuu xubin ka noqdo guddiga maaliyadda, kadibna waxa uu laaluushay gudoomiyaha guddiga Cali Cabdi Cismaan oo gurigiisa kula nool. si uu dawladda u dumiyo ayuu guddigan u isticmaalay cabdulaahi, waxaana ay shuraako yihiin xildhibaan Cadow Cali Geesi oo haysta qandaraasyo musuq lagu bixiyey oo laga qaatay hay'adaha UN-ka isaga oo ka hoos shaqeeya. dawladda Soomaaliya ayaa baaris ku haysta qandaraasyadan. cawaaqibta uu wajahi karo baarista kadib waxaa ka mid ah inuu xasaanadiisa waayo, maxkamadna la soo taago. haddaba isla xisaabtanka uu haatan wada cabdulaahi soo la mid maaha waraabe yidhi waxaan xisaabinayaa xoolihii aan xalay neefka ka cunay. xaggeese xildhibaan cabdulaahi ku sheegayaa mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada ee isagoo ah wasaaradda maaliyadda jooga aan 7 bilood la bixin lagana waayey qasnadda dawladda.